fadlan subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si uusan ku dhaafin wararka muhiimka ah ee aanu halkan soo gelino. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal Ramadaan Kariim meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee Bidamiya TV waxaana ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shaacisay dad hor leh oo laga helay cudurka COVID-19 wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo xubno ka tirsan beesha caalamka kala hadlay xaaladda COVID-19 ee dalka Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan oo bilaabay qorshe looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo howlgalla miina baaris ka fuliyay gobolka Shabeellada hoose madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo la filayo in uu ku dhawaaqo guddiga wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon oo laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo si isxilqaana u dhisaya goobihii ay burburiyeen dhawaan banaanbaxayaal careysan akhbaaraadka caalamka ee Bidamiya TV aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wajiga labaad ee wadahadallada nabadda ee dalka Afghanistan oo dib u bilaabanaya waa hagaag dhageystayaal markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in tiro hor leh oo qaba cudurka COVID-19 oo gaaraya 44 qof maanta kaliya laga helay gudaha dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaana warbixinteeda maanta ku sheegtay in 4 qof ay ka bogsadeen cudurka halka 3 kalena ay u geeriyoodeen wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwe Fawziye Abikar Nuur ayaa cadeysay in tirada guud ee xaaladda COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ay gaarayso 480 ruux tirada bukaanada u geeriyooday ayay sheegtay wasiiradda cudurka COVID-19 in ay gaarayaan 26 qof wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa shir dhinaca internetka ah la qaatay safiirka dalka UK u fadhiya Soomaaliya iyo wakiilka Soomaaliya ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee UK shirka ayaa waxaa labada dhinac ay uga wada hadleen saameynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya iyo qodobo kale sida uu sheegay wasiir Bayle ayaa uga mahadceliyay dawladda UK sida ay u garab taagan tahay isbedelada maaliyadda iyo dadaalada kale ee Soomaaliya ay ku doonayso in ay kaga caawiso sidoo kale wasiirka ayaa uga mahadceliyay dhigiisa uu shirka la yeeshay in ay ka go'an tahay sidii ay Soomaaliya uga caawin lahaayeen dhanka dhaqaalaha oo uu saameyn weyn ku yeeshay cudurka COVID-19 maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta bilaabay carro tuur lagu sameynayo hareeraha webiga Shabeelle iyo goobaha ay biyaha ka baxaan xilli laga cabsi qabo in webiga uu beledweyne fatahaad ku sameeyo goobaha qaar ee webiga ayaa biyo aad u soo buux dhaafiyay waxaana dadka beledweyne ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in uu webiga karkaarka jabsado isla markaasina uu ku fataho guud ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa shalay kormeeray goobaha qaar ee webiga isaga oo sheegay in biyo fara badan ay ku soo wajahan yihiin magaalada beledweyne sanad walba ayaa webiga Shabeelle ee mara gobolada labada Shabeelle iyo Hiiraan waxa uu sameeyaa fatahaado sababa in ay dad badan barakacaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa si iskooda isku xilqaamay isla markaasina waxa ay dib u dhis iyo dayactir ku sameynayaan goobihii dhawaan ay burburiyeen banaanbaxayaal careysan kuwaasi oo ka careysnaa 2 qof oo lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo uu dilay mid ka mid ah booliiska Soomaaliya dhalinyaradan ayaa si isxilqaan ku dhisaya goobihii ay burburiyeen banaanbaxayaasha careysan waxaana dhalinyaradan ay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa ay ka dhameystirayaan goobaha uu burburka baaxadda weyn uu ka muuqdo ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee miina baarista ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgalla miina baarisa ka fuliyeen inta u dhaxaysa deegaanada lambar 50 iyo lambar 60 ee gobolka Shabeellada hoose saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in wadada u dhaxaysa lambar 50 iyo lambar 60 ay ka soo saareen miinooyin fara badan kuwa kalena ay qarxiyeen cidnana ay waxba ku noqon sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in miinooyinkaasi xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay jidka ku aaseen si ay u dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa wali waxay howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano iyo waliba degmooyin ay ka arrimiyaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta iyagoona ku haya dagaallo iyo waliba duqeymo isdaba jooga madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u muuqda in uu ogolaaday heshiiska Somaliland iyo
Soomaaliya waxaana cadaadis ku saaraya heshiiska labada dhinac. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed madaxweyne Biixi ayaa guddigiisa wadahadallada ku soo dari doona xubno hore oo uga muuqan jiray wadahadalladii labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland. waxaana uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in dhowaan uu magacaabi doono guddiga wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Biixi ayaa muddo badan ku jiray qorshaha uu ku soo magacaabayo guddiga u matali doona wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo ay horey ugu dhawaaqday dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceeda guddiga u matalaya wadahadallada Somaliland. ku dhawaaqista guddiga cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu daba socdaa cadaadis kaga imaanaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, kaasi oo madaxweynaha Somaliland ku cadaadinaya in uu dib u furo wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Abiy Ahmed ayaana markii ugu horeysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku kulansiiyey caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, iyadoona aanan la ogeyn wadahadalladii halkaasi ay ku yeesheen labada madaxweyne waxyaabihii ka soo baxay. wararka laga helaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa sheegaya in samafale wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon lagu sameeyey baaris la xiriirta cudurka dunida faraha ba'an ku haya ee COVID-19. wariye Coldoon ayaa maalmihii u dambeeyey la soo warinayay in uu xaalad caafimaad oo halis ah uu ku wajahayo gudaha xabsiga uu ku xiran yahay kadib markii lagu arkay calaamado la mid ah kuwa lagu aqoonsado cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa ku dhawaaqday in wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ay ka qaadeen dheecaanada laga baaro cudurka COVID-19 isla markaasina loo diray shaybaar, inkastoo weli aysan si rasmi ah u caddayn in uu qabo Coldoon cudurka COVID-19 wasaaradda caafimaadka ee Somaliland, balse waxay sheegtay in natiijada ka soo baxda baaristiisa ay dhowaan ay ku dhawaaqi doonto. waa hagaag dhegeystayaal, halka aad ka daawanaysaan wararkaasi waa Bidhaamiya TV. iminkan akhbaaraadka caalamka. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Afghanistan ayaa wadamada NATO ku boogaadiyey sida ay uga qayb qaadanayaan nabadda waddanka Afghanistan. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Afghanistan ayaa wax aad loogu farxo ku tilmaamay hadal dhowaan ka soo yeeray wadamada ku bahoobay NATO, kaasi oo ahaa in loo gudbo wejiga labaad ee wadahadallada ururka Taliban iyo dowladaha quwadda isbida. inkastoo uu jiro heshiis ay gaareen dowladda Mareykanka oo wakiil ka ah dowladaha ciidamadoodu ay ka joogaan waddanka Afghanistan iyo dagaalyahanada ururka Taliban, haddana weli waxaa jira isku dhacyo meelaha qaar ku dhex maraya labada dhinac. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Afghanistan ayaa yiri Mareykanka iyo beesha caalamka waa in ay ka qayb qaataan nabad ku soo dabaalidda dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Afghanistan, waxaana dhowaan la filayaa in dib ay u bilaaban doonaan ayuu yiri wejiga labaad ee wadahadallada nabadda Afghanistan. waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Bidhaamiya TV waa naga intaas. Ramadaan Kariim, nabadgelyo.